qabaliyada Bambaasi qori la ceel baxay waxa ka socda mashaariicaha horumarineed dhanka biyaha gaar ahaan mashaariicaha loo yaqaan 12 qaybtiisa afraad ama lood 4 oo mashruuc xafiiska biyuhu ku xoojinayo adeega dhanka biyaha isla markaana reservoir-yadana ama kaydadkani xilliyada jiilaalka ay noqon doonaan mid bulshada ay kaga faa'iideysato waxaana kormeerkan ku sameeyay mashaariicaha wasiir ku xigeenka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee deegaanka injineer Maxamed Cabdi Haruun iyadoo ku helinayaan xubno kale oo ka tirsan waxyaha xafiiska iyo sidoo kale xafiisyada bahwadaagta iyo injineerada dabagalka iyo kuwa gacanta ku haya mashaariicaha iyadoo sidoo kale ay goobjoog ku ahaayeen shirkadaha dhismaha hadiya ee gacanta ku haysa mashruucani hadaba kormeerkan oo ku wajahna mid mas'uuliyiintan ay u kurgalayeen xaaladda guud ee goobahaas iyo sidoo kale geed socodka mashaariicahan tayadooda waa kan injineer Muxidiin Bashiir Cali oo kamid ah injineerada xafiiska biyaha wax ka weydiinay geed socodka mashaariicdani annagoo ah tiimkii marayay mashruucan dheer ee 32 kayd ee 5 talood ka kooban ayaa hadda waxaan ku suganahay kaydkii ceel baxay ee ugu dambeeyay lood 4 kaydkan statiskiisu hadda wuxuu marayaa meel fiican buu marayaa ilaa 4 mitir baa la shubay kaydkan optionally waxa weeyaan qabalahan laba cilif biyuhu way iman karaan mashruucan ka imanaya maxaan ku dhahay birqood kunagado dig ilaa marsin uu ka iman karaa qabal ahaan wuxuu leeyahay ceel buu leeyahay marka hadda ahaan waxay ka cabaan ceelka ku yaala qabalaha laftiisa dhan kale qaar kamid ah shacabka ku dhaqan qabalayadana ayaan kala sheekaysanay ahmiyadda ay mashaariicdan u leedahay iyagoo taabtay in kaydadkani ay ka kaafi doonaan biyaha ka gu'i jiray maadaama ay ceelashu ay ka cabaan aynan kayd lahayn sidoo kalena kaydadkani u qabaajin doonaan biyaha waxa weeye faa'iido aad iyo aad bana lagu faa'iideeyay markii hore laakiin birkad waxaan kala soo baxnay wax kale ma nahay waxa weeye faa'iidadaas aad iyo aad bay wax noogu tartay waxaana wanaagsan ay ilaashano oo wax tarweyn baan loo taray waxa weeyaan wax qabadkana loo qabanayaa wax aad iyo aad uga faa'iideysanay weeyaan hadii ay tahay xagga dhaqaalaha ee waxaan ku dadka dhalay shaqaabuurka u ka helay hadii ay tahay biyaha oo dadkaydkana loo sameeyo uu yahay mid aad u xoog badan faa'iideysu waxaan ku dadka minka meesha degan bi faa'iido u tahay aad iyo aad faa'iido u tahay hadii wax qabad tahay hadii waxaan ku wax kala subax tahayba waxa qumana waxaan ku dadka meesha joogaan ilaashadaan aad iyo aad u ilaashadaan Cabdi Ismaaciil Daahir waa mas'uuliyiinta shirkadda hadiya gacanta ku haysa reservoir-yadan iyo kaydadkana waxaan wax ka weydiinay muddadii ay bilaabeen iyo waqtiga loogu talagalay inay ku dhameeyaan iyo haday jiraan caqabado ka hor yimid muddada ay wadeen mashruucani saadka xilligan lagu wareejiyay 19 bishii 8aad baha xilligan lagu wareejiyay waxa xilli roobaad bahayd maalinka markaan meesha nimid injineerada shaqada lagu wareejiyeen saadka lagu wareejiyay meel ka noqonaan weynay wadadii aan ka nimid intaan ku noqon kari weynay maalinka si xun ku soo maray ayaan xaggan waxaan ka soo wareegnay kulumbuur iyo qabridaar baan ka soo wareegnay marka bishii Gimboot 28keedii wixii ka horeeyay shaqadu way nagu dhaqaaqi weyday waayo baabuurtii gaadiidkii meel ay noo soo maraan bay waayeen shaqa xataa aan qabanay oo yareed baabuurku waxaan ka soo wareejinay waxay soo mareen qabdaar ay soo mareen kulumbuur bay soo mareen garroog bay soo mareen hadda niisto kale qaar waxaa jirta 780 kilomitir ugu qaatay inaan soo wareejiyo markaan sheegoosh ka soo qaaday qabdaar soo maray kulumbuur soo maray wardheer soo maray xagaasan ka soo galay marka roobkii baa maartay waxoogaa gaab nagu keenay shaqadii martaqana ay dib nooga dhacdo alxamdulillah laakiin 28kii Gimbood wixii ka dambeeyay meeshii loo baahnaa baan soo maraa way fiicantahay marka shaqada alxamdulillah meel fiican bay noo marayaan wixii hadda ka dambeeyana waxa noo dhiman insha Allah taala waxaan rabnaa xilligeena loo agreement aan galay xilli ka horeeya inaan soo gabagabayno intaas kadib waftiga ayaa u sii kacay mashaariicaha laga wado degmada Gaashaamo gaar ahaan qabalayada Kaam Cumar Qaydar Labile Caan Madoobe iyo qabalayo kale oo iyaguna laga wado kaydad ama reservoir oo kamida mashruuca lood 5 oo ay gacanta ku hayso shirkadda deegaan iyadoo intay mas'uuliyiinta kormeer ku jireen shirkadahan mashaariicaha gacanta ku haya ay tala bixin ka siiyeen si ay u sii xoojiyaan adeega ama qandaraaska ay qaateen si bulshadu waqti loogu talagalay loogu dhiso isla markaana mashruucan lood 5 kamid noqon doono mid lagu xoojiyo ceelasha ka jira degmadaasi Gaashaamo oo biyo lagu sameyn doono banka xawga ama banka banaano intaas kadib waftiga ayaa jaanta saaray banka xawga si ay u soo eegaan mashaariicaha kale ee ka socda degmadaasi